madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu u yeeray 160,000 oo rag ah oo ay da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 30 jir waana tiradii ugu badneed ee asgar laga qoro dalkaasi Ruushka tan iyo sanadkii 2011 iyadoo dalkaasi uu ku howlanaa ballaarinta tirada ciidamada talaabadan ayaa timid dhowr bilood kadib markii Vladimir Putin uu sheegay in Ruushku uu kordhinayo tirada guud ee ciidamadooda oo la gaarsiinayo ku dhawaad 2.390 milyan iyo tirada asgarta keedka oo la gaarsiinayo 1.5 milyan oo qofood ku xigeenka madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in asgarta cusub aan loo diri doonin in ay ka dagaalamaan Ukraine waxa uu Ruushku ugu yeeray howlgalkiisa military ee gaarka ah inkasta uu Ruushku diiday xabad joojin buuxda oo Mareykanku garwadeen ka ahaa oo ay la galeen Ukraine haddana waxay sheegeen in ay ogolaadeen in ay joojiyaan weerarada ay ku hayaan xarumaha tamarta ee Ukraine isku day muuqda oo la doonayo in lagu beeniyo Moscow in ay jibisay qodobadii heshiiskaas saraakiisha Ruushku waxa ay sheegeen in ay Putin u sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay qaadeen weeraro aan wax calaamad ah lahayn يعني waxay geysteen leeyahay weeraro aan wax calaamad ah oo tixraac ah aan lahayn guudaan dhageystayaal warkeena caalamka ee aad ka daawanayseen TV-ga taariikhda caalamka inta ayaan ku soo gabagabeynaa inta aan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinka tegaynaa sida iyo nabadgelyo